رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Xamdi Cabdi Barre ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu wajahayo khatar inuu kala go'o oo inta badan uu cadow u qaato inkastoo si rasmi uusan u qeexin nooc cadowga iyo dhibaatada xilligan jirta. Ra'iisul Wasaaraha ayaa tusaale soo qaatay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida ay jireen heshiisyo qawaaniin dawladaha kala xadeynayay balse aysan haatan jirin wax faraha ku jira isagoona ku tilmaamay arintaas wixii ka dhacay magaalada Gaza oo Israel dad shacab ay ku gumaaday. Ra'iisul Wasaare Xamdi ayaa shaaca ka qaaday in dalka Soomaaliya iyo xuduudihiisa isku furan yahay oo mar walba uu qarka u saaran yihiin in la wareego balse waxa uu muujiyay in Soomaaliya laga xishooday oo aysan wax fara ugu jirin. Nugeelka dawladnimada Soomaaliya ayuu Ra'iisul Wasaaraha ku tilmaamay mid aan lahayn daahfurnaan sidoo kalena leh musuqmaasuq ay keentay tabardarida hay'adaha dawladda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa shaaca ka qaaday in adeeg fiican aysan bixin dawladda Soomaaliya sida caafimaadka, ammaanka, waxbarashada haddii ay bixisana aysan ahayn wax buuran oo shacabka gaaraya. عين العافية هوسبيتال وحاو كادوينيا حنونك باباسيركا مدريميسا نبر حنون عاجز جوجتا عنعن دنك هوسا سحردو كوغو أدك إيو هميري دنك غوشا هدبا إسكاقا عربتر حنونك باباسيركا مدك يرشن إيو طبان مالين أديقون وحقلين لغوغو سمين وحي فافاهين كلا حرير تلفن ذاكلا إبر لحال صدن يتضبو سيديتن يسدح أما إبر لحال صدن يتضبو سيديتن يليح أما لمبركا قابن 3 7 7